السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبينو وناكسنا خيارتنا داون إساي ميل كستود كتوكتان دافع عالمك. رمضان مبارك كسور وهذا ورك عاون ندين هينو ورك عاون ندين هينو قضبض وجود وركرون حرير كمريكان كيو إيران لما شذا يسكو رماد إيرلاين تقال كي يوكرين روسكا يورك على عالم ورك على عالمية يورك أفريقيا أو سوالي كتيرتو kusoo dhawaada wararkii oo faahfaahsan wafdiyo ka socda Iran iyo Mareykanka ayaa ku kulmay Geneva si ay uga wada hadlaan heshiisyo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka iyadoo ay jirto jawi wada hadal sidoo kale weeraro hubaysan oo ka dhacay Rhode Island waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof halka weeraryahankiina isdilay sidoo kale wararka Yurub ka imaanaya wada hadallo nabadeed oo dib loogu eegayo Geneva ayaa soconaya xaaladda dagaalkuna waa mid kulul oo halkiisii ka sii socda Ukraine iyo Russia sidoo kale meelo ka mid ah Faransiiska waxaa ka dhacay roobab aad u weyn oo la xidhiidha daadad fatahaya sidoo kale arrimaha Afrika Mareykanka ayaa iska celiyay muhaajiriin badan oo aan xidhiidh la lahayn wadamada sida Cameroon Kenya ayaa lagu tuhmay isticmaalka tiknoolajiyada lagu kormeero ee dadka sidoo kale dhacdooyin masiibo siyaasadda xaaladda murugsan ee Gaza ka hortagga hubka ee Hamas iyo doodaha siyaasadeed ee Mareykanka ayaa sii socda sidoo kale weerar duqeyn ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay duqeyn drone ah suuqa North Cornwall ee Suudaan sidoo kale xaaladda siyaasadeed dhaqaale waxaa jira isbeddello siyaasadeed arrimaha amniga iyo dhaqaalaha dalalka waaweyn ee qaaradda wararka ka imaanaya dhanka iyo Soomaaliya waran maxalli ah Sweden raadiyo Soomaali nin dambiyo lagu tuhunsan yahay ayaa laga soo dhiibay Greega qiimaha gaadiidka korontada ayaa hoos u dhacay deyn korodhay oo saameyn ku leh qiimaha korontada Sweden sidoo kale wada hadal iskaashi dawladda Soomaaliya waxay cadeysay in albaabadeedu mar walba u furan yihiin wada hadal wada xaajood iyo kumidowga fikirka dawlad dhiska wararka ka imaanaya Somaliland mashruuc horumarineed madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa barbare ka daafuray wadooyin cusub cigaal park iyo dhismaha cusub ee maamulka dawladda hoose ee Berbera mashaariicdan ayaa muujinaya wada shaqeyn u dhaxaysa xukuumadda dhexe iyo maamulka degmada magacaabista maamulaha wakaaladda biyaha Hargeysa Cabdilaahi Maxamed Ibraahim Beershiya ayaa loo magacaabay xilka maamulaha cusub kadib iscasilaadii Maxamed Cali Daarood Beershiya waxa uu horay u soo qabtay xilal ka mid yihiin maamulaha Sunpower maamulaha dugsiga leedhka Hargeysa kale madaxweynihii hore ee Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay arrimahan la isla dhexmaraya Israa'iil leeyahay in la xiriira waa gaalnimo madaxweynaha oo ka hadlayo leh carabtu waxay leeyihiin macaamil isagoo hadlaya waa kanan la yar daawado arrinta falanqeynaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Masar maanta tii oran lahayd ma aha cid baa cilaaqaad la yeelatay Israa'iil Camp David Accord-ka lagu shaqeynayo ee waxaan oo dhibaato abuuray ee carab jabiyay ku gubowday waa ka Masar saxeexday 1980 ilaa 80 wixii socday waynu ognahay madaxweynihii ugu horeeyay muslima ama caraba ee tegay baarlamaanka Israa'iil dee Masri buu ahaa madaxweynihii Masar buu ahaa Anwar Saadaat heshiis cid ku dhacdana oo Israa'iil la gashana oo waliba saxeexday inay Israa'iil ahaato dawlad jira loo aqoonsado ahayd in laga dhigo buffer zone inta u dhaxaysa Sinai qaybta xigta halka uu qoray Camp David oo lahayd marka Masar anagoo Somaliland xaq uma laha waana gardaro inay nagu tilmaanto Somaliland baa xumeynaysa islaamka oo ka hiilinaysa Falastiin
oo aanu ka ilaalinaynaa inayna jabiso daawadayaal meel kastood caalamka ka joogtaan ramadaan mubaarak mar labaad baan idin leenahay habeenimo wanaagsan akhyaartana daawanaysaay war waxaan caalamka idinka hayno waa intaa subscribe share like comment please subscribe to noo saara waa cusubnahay commentigeena naga caawiya bye